Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay janalka ku soo biir oo subscribe saar si ay kuu soo gaaraan wax kastoo aan soo geliyo. Mahadsanid. Markaad ogaato inaysan jirin wax joogto ah noloshan adduunyo, waxaad noqonaysaa qof dulqaad badan oo cafis badan. Hala murmin dadka aan ogolayn inay qaladaadkooda qirtaan. Wax kastoo aad samayso, dibindaabyo ha samayn. Ha isku dayin inaad sawir qaldan aad ka bixiso qof kale si aad adigu sawir wanaagsan iskaga bixiso oo aad isu muujiso. Intaad nooshahay waxaa ku soo wajahaya dhibaatooyin fara badan. Isku day inaad xalliso dhibaatooyinkaas, balse inaad ka cararto xal kuma noqoto. Iska ilaali dadka murugada iyo welwelka kugu abuura, aanan kuu ogolayn horumarka iyo farxadda. Waxaad doorataa kuwa ka taliya mar waliba horumarkaaga, farxaddaada, kuna dhiirageliya mar kasta oo aad murugsan tahay. Muuqaaga siduu doono ha u ekaado, marba haddii aad tahay qof qalbi leh oo naxariis badan, waxaad tahay qofka dunida ugu quruxda badan. Weligaa ma awoodayso inaad raaligeliso dadka oo dhan. Marka waxaad xoogga saartaa sidaad ku raaligelin lahayd Allihii ku abuuray subxaanahu wa tacaala. Haddii uu qof isku dayo inuu ku dulmiyo, xusuusnow adigu ma xakamayn kartid waxa ayaga ay samaynayaan, balse waxaad xakamayn kartaa falcelintaada. Way fududahay inaad kelinimo aad dareento xaaladdu markay kugu adkaato. Ma ahan dhibkaaga inaad dadka kale la wadaagto, balse waxaad ogaataa xaalad kasta oo aad ku sugan tahay, Alle subxaanahu wa tacaala wuu og yahay. Wixii la soo dhaafay waa ay tegeen. Dib uma noqon kartid si aad u soo saxdo. Shayga keliya oo aad samayn karto waxay tahay inaad hore u socoto, casharna aad ka barato qaladaadkaaga.